kulanti wanaagsan daawadayaal giddigiinba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeeni sheekooyinka fanaaniinta iyo qisooyinka fanka Soomaalida. haddaba maanta barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa qiso kale oo ka mid ah qisooyinka fanaaniinta Soomaaliyeed iyagoo ku dhacay. haddaba maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeeni fanaankii weynaa ee loo holin waayey ee codka halaasiga lahaa ee Xasan Aadan Samatar. Xasan Aadan wuxuu fanka soo galay bilowgii 70-meeyadii isagoo ka mid ahaa fanaaniintii fanka ku soo gashay barnaamijkii fanaaniin badan ay ku soo caanbixeen ee la odhanayay hirgelinta heesaha. haddaba barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay fanaanka weyn ee Xasan Aadan, fanaaniintii uu soo guursaday iyo kuwii kale ee jaceylka iyo galgacaltooyada uu kala dhaxeeyay. haddaba Xasan Aadan intuusan fanka soo galin waxa uu ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo isagaba sheegay. haddaba ciidamada waxaa sidoo kale ka mid ahaa fanaaniin badan oo fanka Soomaaliyeed hablo iyo wiilalba leh. fanaaniintaasi waxaa ka mid ahayd fanaanada weyn ee codka dahabiga leh ee iyadu la holin waayey ee Khadiija Foodey. Khadiija Foodey iyo Xasan Aadan ayaa iyagu waxaa la leeyahay waxa ay ku kulmeen ciidanka halkaasoo iyadana qayb ee ka mid ahayd ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Xasanna xilligaasi uu ciidamada soo galay waa intuusan fanka soo gelin Xasane uusan ka qayb gelin barnaamijkii hirgelinta heesaha. haddaba dadka fanka Soomaaliyeed u dhundolola waxa ay sheegayaan in xiriir jaceyl iyo kalgacal uu ka dhex bilaabmay fanaanka weyn ee Xasan Aadan iyo weliba fanaanada kale ee Khadiija Foodey waagii ay ciidamada joogeen. dadka qisadaasi ka faallooda waxa ay sheegayaan in jaceylka Xasan Aadan iyo weliba Khadiija Foodey uu noqday mid banaanka u soo baxay ciidamadana ay ogaayeen. jaceylkaasi oo ay doonayeen labada fanaan inay ka miro dhaliyaan welibana aqal seeska ay u dhigaan tusiyaana jaceylka inuu yahay mid indhala oo bulshada dhexdeedana qof kasta qofkii uu calmadaa uu doonayo inuu helo. haddaba si kastoo ay tahay Xasan Aadan iyo jaceylkii u dhaxeeyay Khadiija Foodey waxaa soo fuulay culeys kaga yimid dhanka bulshada gaar ahaan qoyska uu Xasan Aadan ka soo jeedo. Soomaalida oo iyagu qabiil iyo weliba qabyaalad aanu ka dhammaanin ayaa iyagu waxa ay ku tuhmeen Xasan Aadan inuu jaceyl wadaag leeyahay gabadh uusan guursan karin. dadka fanka ka faallooda waxa ay sheegayaan sababta ugu weyn ee jaceylkii Xasan Aadan ee Khadiija Foodey uu baaba'ay una u noqon waayay mid seeska dhiga ee qoysna laga aasaaso waxay tahay ay leeyihiin sababtaasi in Xasan Aadan uu isagu ka soo jeedo qabaa'iladan kale iyo weliba fanaanada kale oo iyadana ka soo jeeda qabiilada aaminsan yihiin qabiiladan kale inaysan isguursanin. si kastoo ay ahaataba Xasan Aadan iyo Khadiija Foodey jaceylkii ay doonayeen inay seeska u dhigaan famil qurux badanna ka aasaasaan waxa uu u baaba'ay culeys ka yimid dhanka bulshada. Xasan Aadan ayaa isagu waxa uu u dabacay go'aanadii iyo weliba hadaladii ka soo baxaya qoyskiisa sidoo kalena uu dhageystay hadaladii ka imaanaya dhankooda. haddii aad eegto fanaanka weyn ee Axmed Cali Cigaal ayaa isagu qiso noocaas oo kale ah ku dhacday, laakiin Axmed Cali Cigaal waxa uu kaga duwanaa Xasan Aadan. go'aankiisii ayuu ku dhaqaaqay jaceylkii uu qabay fanaanadu jeclaana qoyskiisa ay diidinaayeen waa uu ka dhabeeyay qoys ayuu aasaasay ubad qurux badanna ka dhashay inkastoo waagii dambana uu qoyskaasi u baaba'ay. haddaba jaceylkii u dhaxeeyay labadaasi fanaan ee Xasan Aadan iyo weliba Khadiija Foodey qaabkaasi ayuu ku baaba'ay. fanaanada weyn ee Khadiija Foodey ayaa iyadu waxa ay ku luuqeysay hees aad iyo aad u xanuun badan oo calaacal ah oo ay kaga hadlayso dhibaatadii loo geystay jaceylkii u dhaxeeyay iyada iyo fanaanka weyn ee Xasan Aadan. waxaana ay tiri yarkan arrimahiisa
إلى أفوق هدي حتى أنا قاعد إنو وعدك إلا ويهينو حتى أنا قاعد إنو بلنت أدكينا هايو مأوي 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 gabar ugubaho ede badan lahayd been loo akhriyaayo ilhay geline isoo eeg la yidhi ilhay geline isoo eeg la yidhi فهني جري محاول أساقي فهني جري أيان له أوري وعن هلانا هاي أيان له أوري وعن هلانا هاي وأحانينو أقلكيس دمي جعيلكي أيامهن جعيلكي أيامهن نقي ورن أفلو يركن الرمهيسة إلى أفوق هدي haddaba sheekadaasi maanta halkaasi ayaynu kusoo gabagabeynaynaa qiso kale oo ka mid ah qisooyinka fanka Soomaaliyeed intaynu dib dambe ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabaadiina nooli kulanti iyo amaana Allah